ku socday 8 sano ayuu kufsigu ku socday gabadha yar way sheegtay ciyaalkii oo dhan horta ciyaalkeeni afka la haya afka laga dhirbaaxaya suuqa waxay ku hadays baa la dhaxaya ayaydeed bay u sheegtay gabadhaas marka koobaad ayaydeed labada nin hooyadood baa loo sheegay labada nin ay iga dambeeyo hooyadood baa loo sheegay aabaheed bay u sheegtay dadka moodaya sheekadan inay been tahayowna haday been tahay maxaa labada nin loo xiray way xireen xabsi bay ku xiran yihiin maxaa labada nin horta ay jeel ugu jiraan waa qodob gabadh yareed maxaa masar loo geeyay labo mid kale idin ogeeyna waan idin ku darayaayo gabadh yareed makaanka waa laga saaray baa وريا ساعة سبحان الله أدونك ولا أدوني قدام بالوجرة أرين كان عليك تاري شلي ضد بدن باي صدري لكن كمان هذلين صوبته وحفوظتين نقوم كرتا قف حتى وعرى يسمى نقوم كراس ورد استعمالي ما أنا كهذلين لكن هذا يرتعمل كأكيد عم مختار وكهذلي ضد بدن حلوة ولا هذا اللي يرر الأسعار ويعدي أصحابنا هو أو يعدي كيس دعينه لكن كيس كان ما أنت ما دعم وحول دعي كيس كان لبدي يكون يلا بيلا تنكي بالأوجادي كيسكا gabadha waxay 9 sano waxay jiray 2015 2015 sagaal jir bay ahayd markaas kufsiga lagu bilaabay ilaa 2022 markay sheegtay gabadha xilligaas waa la kufsanayay uu ku socotay hawshu okay gabadha waxay u yihiin nimankan baa la dhahay adeeradood labaad weeye baa la dhahay adeeradood aabahood la dhashay ma waa adeerkood labaad guriga familkaasina ku noolay ayaydeed amay la joogtay oo nimankaas dhashay kulay famil bay la noolayd gabadhu ma aha labada nin bas in la noolayd gabadha yarta labada nin basaas ay u isticmaali jireen baa yiri 2022 marka laga xaalay waxa la dhahay sida Soomaalida dhaqankeeda iyo xoolaha la kala qaatay waa la kala aamusay kiiskii masna marka la dib loo soo cusboonaysiiyay labada nin waa la xiray hadda labada nin bay u xiran yihiin okay gabadha yarta inta wax ku dhacayeen ayayda sida maqlisa way u sheegtay aabaha way u sheegtay cid ka hoos qaaday ma lahan ilmaha ila Soomaaliya cidna ma wareysatay war ilmaha wareysta please okay kiiskii marka labada nin way xiran yihiin dad baa hadda social media keenay laakiin wax maanta dhacay ma ahan kiisku labadaas nin oo doqdoqoobay waxay kufsanayaan waa 9 jir 9 jano jiraan adeerra ay u yihiin oo ina adeerkood labaad u dhalay weeyo Soomaaliya wallahi billahi taala mararka qaar waxa dhahaa dadka ku nool waa dad noocay ah waxa dhacday gabadh yartahay waa la kaxeeyay dhahay hadda maskaxiyan baa wuxuu gaanay cunugta yarta maskaxiyan xataa uma caafimaad qabtaa dhahay waa dareemi kartaa sabab maskaxiyan ugu caafimaad qabta gabadh yaro dadkaas ugu weynaad isku soo qaawanayaan gabadha yarta sida maqlisa makaanka xataa waxba ka gaaray waxa la ii sheegay oo kale ta gabadha mar labaad xataa in la guday oo kiiska iyadoo la qarinayo cid guday ma oga ma familka la noolayd ba ma familka gabadha kale familkeeda cadiga wareemiyay gabadhaas waxa laga yaabaa reerka in loo siiyay inuu u shaqeyso oo ciidan ahaan loo siiyay ay saa ugu tacadiyeen saa dhibaatada ugu geysteen gabadha xataa mar labaad baa la guday bil gudniinka waxa ka socdaa tacadiyada Soomaaliya ka dhacay deetrada ka bateen nimankaas aytana sharciga islaamka wuxuu qabaha la marsiyo yaana xabsiga laga soo deyn dadkii social media sawirradooda keenana way ku mahadsan yihiin because waxaas oo kale in la ceebeeyo oo ummadda laga takooro xaq way u leeyihiin in la ogaado ummadda oo dhan la ogeysiyo xaq way u leeyihiin gabadha yartaana Ilaahay caafiyo qalbiga Ilaahay oo qaboojiyo qof kasta oo ilma dhalayna walaala ilmahaaga wareyso walaala ilmaha xataa dariska haduu ku waramo wareysta xataa wad wareysta dad kale xataa u sii sheega ilma dadka ogtiina dimaanta waxaan day hadda maanta qola kasta oo kufsi geysta markii la ceebeeyo oo social media la keeno sawirradooda waxaan xataa way ku yaraanayaan soo ogid nin kasta wuu baqayaa in social media la keeno please waxa weeye qof kasta oo og meel gabar lagu dhibaateeyay cid dhibaataysay soo qofa social media la keeno kulligood wajiyadooda ha la ceebeeyo dul weeyo waxaas dul alle in ka dhigo iimaanka alle in ka qaado